الله وبركاته وعشر كني لباد SPSS programkii marka SPSS programkii waxa soo gelin doonaa imika dhacdadeenii halkii markay noo joogtay marka imika halkii baan ka sii qaadinaa imika xogta halkan ku qoran bay marka soo gelinaa marka xogta halkan ku qoran si inuu soo gelino programkeenan dhacdada SPSS programka marka soo gelinayso salaano waxaad ku qoraysaa halka waxa weeyaan name waxaad qoraysaa kale date marka shift iyo minus waa ku kala jarnaa breath waxaad qoraysaa kale gender waxaad qoraysaa job waxaad qoraysaa income marka imika waynaga wada qornay marka halkaas aad ku dhufanaysaa marka halka ku dhufto wuxuu qaadanaya name waxa weeyaan halka daaqada yar marka dhufto halka yar baa soo baxaysa marka halka yar soo baxdo waxa ka dooranaysaa street marka okay waa siinaysaa date ka kale halkaas aad ku dhufanaysaa mar labaad marka isagana date waad ku dhufanaysaa okay waa siinaysaa marka dhisma halkan way iska siiro gareynaa maadaama inaan xisaab qorin inaan income qorin fara badan ismarka siirooyo kala iska oranaynaa marka siiro iska nidhaa fartan way yar waaweynaysanna fiiba tigisa marka fii tagto font saas ka dooranaysaa marka font saas ugu dhufato wata halka ka soo baxaysa marka 26 ka taban okay ku siinayna marka okay ku siino halka waxa ku qoran label labelkan waxaan gelinaynaa name of responder waxaan gelinaynaa date of responder gender of responder job of responder income of responder marka waxaanu gelinay labelkiina waxa weeyaan magacii oo dhameystiran baan gelinay markii magaca dhameystiran labelka gelino marka magaca dhameystiran baan labelka gelinay halkan waxaan imanaynaa waxa weeyaan column iyo missing marka missing waxa lagu qoriyay waxa weeyaan hadii wax ka maqayn oo kale amba ayaa wax lagu qoriyay marka inagu ka weyn iska boodina marka column ka weyn halkaas iska diinaa aligningska left iyo right baa kala geeyay halka waxa imanaya nominal scale iyo measurement marka inta measurement intiina gelin halka waxa ku qoran tvs baa ku qoran marka tvska gender ka kale wuxuu qaadanaya hadaynu eegno tusaale gender ka dib u noqono wuxuu job ka kale iyo gender ka kale waxay hayeen waa coding oo waxaanu kala siinay 1 iyo 2 in kala siinay students 1 bay siinay lecture-na 2 bay siinay nominal way noqon kartaa oo kale male iyo female waxay qaadanayeen 1 iyo 2 amba 0 iyo 1 bay qaadanayeen marka imika markaynu nimaadno tabin tusaale halkaas in furaynaa marka halka furaan halka ku dhufanaa waxaan jeedaa markaynu nimaadno value markaynu nimaadno waxaynu u eeginaa genderkii wuxuu ahaa lambarka saddexaad marka saasaynu raacna marka soo raacno saasaynu jeedina marka soo jeedno genderka hortiisa value-ga waka ayaan ku dhufanaynaa marka waxaan siinaynaa 1 ayaan halka ku qoraynaa marka waxaan qoraynaa male marka add baan siinaynaa marka halka haddana 2 baan qoraynaa haddana waxaan qoraynaa female add baan siinaynaa haddii aan doonayno imaka tusaale ahaan inaynu number 1 ka dhigno female ka kale halkaas aad click garanaysaa remove baa iska siinaysaa haddana mar labaad baa click siinaysaa male-kii remove baa siinaysaa marka deetana waxaad oranaysaa 1 ayaa laga dhigayaa female 1 ayaa laga dhigayaa female halkaas aad ku qoraysaa marka rc 2 na waxa laga dhigayaa male marka wayna ku soo darnay marka okay waa siinaysaa magaciin allahumma salli ala maxamed waxaad kale oo siinayna lecture oo noqonaya jobkii iyo studentskii ayaan tagaynaa marka isagana waxaan taabanaynaa 1 oo waxaan siinaynaa lecture marka rc 2 na waxaan siinaynaa student marka arbaan siinaynaa labada marka rc isagana okay baan siinaa marka okay siino halkan waxa ku sii socda measurement-igi marka measurement-iga hadii aynu ku noqono xogteeni datadan hadii ku noqono name ka kale wuxuu qaadanayay waxa weeye nominal buu noqonayay oo name-ku de Ahmed iyo Faarax iyo Ismaan maaha magacyo in wax micna sameeyaan waa magac waa magacun marka wax micna sameeyaan
measurementga waxa weeyaan haddaynu eegno date-ka iyo income-ka. Date-ka iyo income-ku waxa weeyaan date hadaynu highlight saarno date iyo income. Date iyo income haddaynu highlight saarno date iyo income waxay qaadanayaan waxa weeyaan skill bay qaadanayaan. Date iyo income waxay wada qaadanayaan waxa weeyaan skill bay qaadanayaan. Halka gender iyo job ay qaadanayaan coding ahaayeen oo noqonayaan ordinary noqonayaan ama nominal. labadaba ay noqonayaan ordinary nominal noqon karaan. markaynu imanka gelinayno measurementga waxaan markaa u eegaynaa imanka tusaalahan haddii aynu date siino kale dee skill siino ordinary siino measurementgeeni markaan graafka kusoo muujin doono waxay soo baxaysaa qalad bay soo baxaysaa. Marka iminka markaynu halkan ku dhufano nominalku waxa weeyaan kaasi nominal buu qaadanayay, nameku nominal buu qaadanayay, genderka oo kale wuxuu qaadanayaa isagana ordinary, jobkuna wuxuu qaadanayay ordinary. tusaale ahaan nominal buu qaadanayaa, genderka oo kale nominal buu qaadanayaa, jobkuna wuxuu qaadanaya ordinary. Halka aynu ka siinayno income-ka iyo lecture income-ka iyo date of birth-ka skill bay qaadanayaan. Marka halkan ka soo eegaynaa tusaale ahaan date of birth iyo income-ka waxaan siinaynaa date of birth iyo income-ka skill bay qaadanayaan. income-kuna wuxuu qaadanayaa skill, genderkuna wuxuu qaadanayaa nominal, jobkuna wuxuu qaadanayaa ordinary. nominal bay ka dhiganaa halkaynu labada kale ka dhigayno ordinary aynu ka dhigayno. Marka halkan aad eegaysaa genderka oo kale waa nominal, jobkuna waxa weeyaan ordinary, income-kuna waa skill. kana halkaas ku dhufanaysaa marka halkaas furaysa ordinary ka dhiganaa. Marka wanaga imanka soo kala siinay xogtii anaga soo kala siinay iminka marka waa warqadina ku qoran markaynu data entry-gana diyaarinay date of birth-ka oo noqonaya skill buu qaadanayaa, income-kuna wuxuu qaadanaya skill. Halka genderka iyo jobku qaadanaya ordinary iyo nominal qaadanayo. Name-kuna uu noqonayo nominal oo name-ku wax macna sameeyo male iyo female waa male iyo female wax macna sameeyaan. Laakiin students iyo lecturer way kala sareeyaan oo level-kooda ba kala sareeyo waa ordinary. A iyo B bayn kala siin karnaa. Tusaale ahaan iminka studentsku wuxuu noqon karaa B number waxaan siin karnaa tusaale ahaan B bayn siin karnaa. halkaynu A ka siinayno lecture-kana aan ka siinayno A way kala sareeyaan. Marka waa ordinary A baan ka siin karnaa, wixii lecturer A baan siin karnaa. markaynu datadeennii SPSS-ka soo gelino waxaan tegaynaa data view bay tegaynaa. Marka data view markaan imaadno waa kan ugu jiraan. Tusaale ahaan waxaan gelinaynaa Ahmed baan gelinaynaa. Marka Ahmed gelino goormu dhashay wuxuu dhashay kowdii dad bayn taabanaynaa bishii shanaad dad bayn taabanaynaa 1992 deetana caadi ugu soo gelinay ka kowdii May kowdeedii 1991 ayuu dhashay. Wanaga ma soo gelinay halkaas aad ku dhufanaysaa. Marka genderku muxuu maxay salaan gender halkaas aad ku dhufanaysaa. Marka ma male ba mise waa female. Marka waad eegaysaa Ahmed waxa weeyaan male weeyaan. halka haday noqono halka haday ku sii dhufano waxa weeyaan ma students ba mise waa lecture. waxaan oranaynaa waxa weeyaan lecture. income-ku qaadanaya waxa weeyaan waxa 250. marka hadaynu qorno maynu qornayba waxa waan nidhi waxa weeyaan labadii dad bayn taabanaynaa bishii 6aad
dot kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii baan nidhi marka labadii isagaaba automatic usoo bedelaya marka waxa weeyaan halkaasaan furaynaa daaqadaasaan furaynaa mar labaad inaga waa female waxa weeyaan students baan nidhi waxa way wax lacag waxay qaadataa $60 baan nidhi marka tusaale ahaan markaad ku soo darayso xog cusub amba data cusub markaad ku soo darayso ee datadeed gelino haddayna halkan ku noqono halka waxaan ku qoran value meesha ku qoran tahay watan students lecture markaan ku soo darayna halkan kaga soo darayna halkan kaga soo darayna waan halkan kaga soo darnay halkan marka programkan halkan kaga soo darnay value gaan soo darnay marka isaga automatic noo siinaya program SPSS ka automatic noo siinaya marka datadeeni markaan dib u eegno salahan datadeeni watan waxa weeyaan Axmed Faarax Cismaan waa ilaa 10 qof marka taariikhda dhalashaduna waa halka ku qoran income ka ka qoran labadina way soo gelin marka datadeeni marka data view tagno waynaga marka qorayna tusaale waxaan qornayba Axmed waxaan qornayba Cismaan xullu imaka tusaale halka magacii labaad qori karimis Cismaan Cabdillah hatan isna qori karimis halkaas ku joojinaya u diidaya marka doonaysid inaad kordhiso variable baad imanaysaa marka variable timaado waxaad ku dhufanaysaa waxaad imanaysaa name ka markaan nimaadno width baan ka dooran doonaa marka width ka doorato marka 8 weeyaan tusaale ahaan waxa width kaas ku dhigna waxaan ka dhigaynaa 25 kaas ka dhignaa 25 kaas ka dhignaa marka waa kan name kani marka variable kii baan nimaadna width kii baan kordhinay marka data view bay ku noqonaa marka data view ku noqonaa waa kan waxaan noqonay Axmed waxaan noqonay Cismaan Axmed Yusuf Cismaan Axmed Yusuf aan qornay marka data view gini imaka ka caad programka ka caad qaatay marka xogtii dhameystiran marka uu qaatay diyaana eegno aynu yar weynayno Cismaan Axmed Yusuf waxaan nidhi wuxuu dhashay 13kii bishii labaad 1998 waa kan waxaan siinay mail waxaan siinay students baan siinay income kiina waxaan gelinayba 7 gelin marka datadeeni markaan xogtii oo dhammaysa soo gelinaysaa marka xogta soo gelinayso marka deetana imaka tusaalaha haddii aynu halka ku dhufano tusaalahan ka hor haddii halka ku dhufano marka imaka maxayna siiyey job oo students lecture maxayna kala dooran students iyo lecture waxaan soo kala siinay 1 iyo 2 bay soo kala siinay maadaama 1 iyo 2 soo kala siinay waka ku jooji imaka tusaalaha haddaan mar labaad kala gareeyo male iyo female ba ku qoran haddaan imaka halka click siiyo uu ka qaaday wuxuu ka dhigayaa 1 iyo 2 imaka job oo kale waa 1 2 oo kale waxa weeyaan waxaan noqonaysaa imaka 1 bay lecture siinay 2 na students bay siinay halka 2 na siinay male 1 na aynu siinay female marka halkaas ku joojin doonaa xogta dhameystiran marka waxaan jecelahay inaad sii gelin doontaan haddaad clipka aragtaan oo inta xog qortaan idinku dhameystiran aad gelin doontaan marka saas loo gelinay marka waan gelinay xogta waan gelinay marka Axmed oo kale waan gelinay dhalashadii waan gelinay waxaan gelinay kale genderkiina waan gelinay oo male iyo female buu noqonayay hadii aynu eegno halka wata ka muuqata halka ka muuqata female iyo male binu loo kala doorayay waxa kale inuu sameynay income kii way gelinay job iyo gender oo inuu soo doonay cardinal noqonaysa iyo nominal waynaga xagga variable ka soo gelinaynay xagga variable ka laga soo gelinayay 10ka oo SPSS ka waxa ku saabsan tahay in xagga laga soo gelinayo variable ka tagaysa marka value marka tagto ayaa halkan ka soo gelinaysa marka value tagto waynaga halkan ka soo gelinayay variable kaalay value kaalay marka halka fur halka wata halka soo furaysa marka 1 baan ku qornay male 2 na female
one female tuna female iminka haddaan halkan ka baabino halkan way ka baabaysaa data view ku noqo halkan way ka baabaysaa marka hadday kaa qaldamaan waa inaad ka soo saxdo xagga waxa kale oo ah in muhiima measurementga nominal iyo scale iyo ordinary qaabkaas kala siinayso waxa weeyaan muhiim oo ah inaad marka hore staticska taqaano staticska waxoogaa taqaano ku saabsan spaceska waxa weeyaan majority waxa ka shaqeynaya waxa weeyaan staticska marka waa staticska inaad taqaano marka staticska measurement of statics waa inaad taqaano oo meesha doonaysa in datadeeda aad doonaysa wax ka qorto inaad xogteeda aad hayso wixii ka hadlayo iyo waxa aad makrasa qosaya marka insha Allah bismillaah kariim halkaas ku joojinayna intaan casharkan cashir ku xiga soo gelin doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh